waxaa laga hadlay arrin oo iskuulahanayto oo AIC iyo Father John iyo ilmaha la geysanayo ani horta qaasatan arrintaas waa aadan ugu horimaadsan maxay yeelay waxaan ka hadlaa from experience point of view waxaa jirta wiilkayga oo Al-Furqaan ka dhameeyay taxfiid waniya taxfiid ka arsanay Al-Furqaan asagoo quraanka si fiican u bartiyo salaada bartiyo oo iska yar Nairobi lagay school waxa lagay oo Mo Education Center la dhahay waa school oo gaala in adeerkiisa ay cunugana sponsor gareena waniya iska soo akhristay cunugu markuu salaad dujinay waxay dhigi jireen ayaydiis iyo kullu waxay dhigi jireen cunugan salaada soo noo dujinay Cabdullaahi aan keeli jirnay dhigi jireen waniya markuu akhristay schoolka cunug asay kaliya schoolka islaamka ahay wuxuu ku marka schoolka tagaan salaad dukana hooy ilma waa ikor marmaray cunuga saas u socday salaadi waa ka tagay quraanki waa ka tagay wax asoon garanayni 2 holidays April holiday maanin August holiday December holidays cidi maada wajeer isku soo noqday markii isku soo noqdaan kala salaad duku wuxuu dhahay let us pray asigi abiis isla fadhiyaan cunug indees ku qabsaday waa experience abiis wuxuu dhahay waxa deelahay intaan leen cunuga wax baranayna baa wuxuu yiri naaraan raadsan hayna cunuga iskuulka waa laga soo bixi Al-Furqaan ku soo celinay Al-Furqaan iska dhameey dugsi waa dhameey alxamdulillah hadda waxa isku jira secondary marka ilmahan kaas waa marka ilmaha yar oo iskuulahan gaalada la geeyna ma fiicna maxaa yeelay waxan bay ku asootaan wax kasta interest jira there is nothing like interest waxay leeyihiin iskuulaha ilmaha si fiican foundation ay noo helayeen iskuulahan islaamka foundation ka helayna ka si fiican cunuga Al-Furqaan geysatay ama waxad geysatay iskuulka islaamka foundation kaas cunug ku soo dhisma waxa way wax fiican la soo baraa waana baasaan ilmaha iskuulahanayto marka dadka waalidiinta oo ilmahooda iskuulahan oo geynaya tafadaali sana aan iska dhaafno